halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegaystayaal waa talaado 8 bisha August Afrikada barina saacadu waa 5 galabnimo oo gow ah. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dunida iyo maantana waxaa ka mid ah caruur dugsi quraan dhiganayay oo lagu laayay miyiga deegaan hoostaga gobolka Doolo ee dawlad deegaanka Soomaalida. qaar ayaa falkaasi lagu dhaawacay, kuwa kalena waa lagu afduubay. aabahan oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda la dilay ayaa sidaan BBC-da u sheegay. caruurtaani gurmad caafimaad oo degdeg ah ayaa macnihii waxay ahayd meeshii ugu dhoweyd hadda halkan deegaamada xagga caafimaadka meeshii ugu dhoweyd bay ahayd. marka caruurtu dee iyagoo qaar garaab yahay oo qaar meyd yahay ayaa dadkii argagax ahaan ula soo carareen, laakiin deegaanka ay degan yihiin oo dugsiga ku haysteen oo dad deegaan ahaan ka tirsan yihiin. dawladda Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn ay ku burburisay goob al-shabaab ku diyaarinaysay qaraxyo oo ku taala gobolka Hiiraan. dagaalka ka socda gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya oo sii xoogaysanaya. waxaa kale oo aad maqli doontaan Mareykanka oo ka digay Qatar uu sheegay in ay uga iman karto dalka Niger kooxda calooshad u shaqaystayaasha Ruushka. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan galabnimo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh, anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doona dhageystayaal. waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Axmed Yuusuf Cadceed. mahadsanid xasan. gudoomiyaha guddiga isbeddelka cimilada ee ururka magaciisa loo soo gaabiyo IPCC ayaa ku tilmaamay sugnaanshaha maanta ee ah in bishii hore ee ahayd tii ugu kululayd ee abid la diiwaangeliyo ay tahay mid aan caadi ahayn. Professor James Key ayaa BBC-da u sheegay in xawaaraha iyo sida xad-dhaafka ah ee heerkulku u kacay ay ku noqotay lama filaan. tan ayaa timid kadib markii hay-adda kormeerka cimilada ee midowda Yurub Copernicus ay sheegtay in celceliska heerkulka bisha Luulyo uu ahaa 16.6 darajo oo Celsius oo 3 meelood meel ka sarreysa heerkulkii ugu sarreeyay ee la diiwaangeliyo 4 sano ka hore. hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in heerkulka sare ee badaha adduunku uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee abid la diiwaangeliyo. hogaamiyaasha 8 waddan oo ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika ee wadaaga kaymaha Amazon ayaa isugu imaanaya magaalada Belém ee dalka Brazil si ay uga wada hadlaan sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo kaynta. madaxweynaha Brazil Lula da Silva ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono xaalufinta dhirta halka lagu gaaro sanadka 2030. waxa uu raadinayaa hab goboleed isku xiran oo wax looga qabto macdan qodista sharci darrada ah iyo jarista dhirta iyo sidoo kale dambiyada kale ee deegaanka. hogaamiyaasha qowmiyadaha asaliga ah oo ay ku jirto Nema Vigeta oo ah hogaamiyaha asaliga ah ee qowmiyadda Waurania ee dalka Ecuador ayaa ku baaqday in la qaado tallaabo geesinimo leh si loo ilaaliyo xuquuqdooda iyo sidoo kale nidaamka deegaanka ay ku tiirsan yihiin. kayntu ma aha ceel saliid, ma aha meel dahabka laga qodo. waa macbadkeenna, gurigeenna, suuqeenna, dugsigeenna iyo hoyga ruuxdeenna. taasi waa sababta aan sidoo kale uga codsanno hogaamiyeyaasha waaweyn ee adduunka inay shaqo adag ka qabtaan ilaalinta dhulkan. ma aha oo keliya madaxweynayaasha dalalka wadaaga kaynta Amazon. boqortooyada Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday waxa ay ugu yeertay tallaabadii abid ugu weynayd ee ay ka qaado dalalka saddexaad ee gacanta militariga ee Ruushka. liiskan waxaa ku jira shirkado laga leeyahay Turkiga iyo sidoo oo la sheegay inay ku lug lahaayeen dhoofinta qalabka elektarooniga ay isticmaalaan militariga Ruushka iyo sidoo kale shirkad fadhigeedu yahay Dubai oo dawladda Ingiriisku ay sheegtay inay Moscow ka caawisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qalabka kale ee la hago. muwaadiniin ka soo jeeda dalalka Switzerland iyo Slovakia ayaa lagu eedeeyay doorkooda fududeynta heshiisyada hubka. reer galbeedka ayaa Moscow ku soo rogay mowjado cunaqabatayno ah tan iyo markii bilowgii dagaalka Ukraine, laakiin qaybaha qalabka muhiimka ah ee reer galbeedka ayaa weli sii gaadhaya Ruushka iyagoo u maraya dhexdhexaadiyaal kala duwan oo ay ku jiraan Shiinaha, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. dowladda Georgia oo dadka dhaliila ay ku eedeeyaan inay taageersan tahay Ruushka ayaa Moscow ku cambaaraysay sanad guuradii 15 ee ka soo wareegtay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Georgia. ra'iisul wasaaraha Georgia Irakli Garibashvili ayaa sheegay in caalamka oo dhan uu og yahay in Ruushku uu yahay mid gardaran iyo sii socoshada qabashada Ruushka ee qaybo ka mid ah dhulka Georgia ay caqabad weyn ku tahay horumarka dalkiisa.
qiyaastii 5 meelood meel ka mid ah dhulka Georgia ayaa la qabsaday tan iyo dagaalkii gaabnaa ee sanadkii 2008. dowladda Georgia ayaa diiday inay ku biirto cunaqabatayda reer galbeedka ee ka dhanka ah Moscow tan iyo markii uu duulaanka ku qaaday Ukraine. bishii Maarso waxay isku daday inay soo bandhigto sharci xadidaya saameynta shisheeye, laakiin dibadbaxayaasha reer galbeedka ayaa ku qasbay inay la laabato. wasiirka maaliyadda ee Israel Bezalel Smotrich ayaa xayiray dhaqaalihii ay siin jireen magaalooyinka Carabta iyo waxbarashada Falastiiniyiinta, talabadaas oo dhalisay eedeymo cunsurinimo. Bezalel Smotrich oo ah madaxa xisbiga taageersan dadka deegaanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah lacagaha loo qoondeeyay golayaasha deegaanka Carabta ee Israel ay ku dambeyn karto gacanta waxa ugu yeeray dambiilayaal iyo argagixiso. hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ayaa ku eedeeyay Bezalel inuu ku xadgudbay muwaadiniinta Carabta cunsurkooda awgeed. bulshada Carabta ee Israel ayaa ka kooban 5 meelood meel ka mid ah muwaadiniinta Israel, waxayna wajahayeen gacan bidixayn dhaqaale iyo mid bulsho muddo 10 sano ah. ugu dambeyntiina hogaamiyaasha golaha militariga ee hay-adda dalka Niger ayaa sheegay in aysan aqbali karin booqasho diblomaasiyadeed oo heerkoodu sareeyo sababo la xiriira khatar ku wajahan ammaanka dadka soo booqanaya. wufuudka kala socota urgoboleedka ee kuwaas midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa lagu waday inay maanta dalkaasi u duulaan, balse hogaamiyaasha afgambiga sameeyay ayaa ECOWAS u sheegay in cunaqabatayda iyo khatarta duulaanka kaga imaanaysa ururkaasi ay abuurtay cadho dadweyne, sidaas awgeedna aysan wafdiga marti gelin karin waxa ay ku tilmaameen xasilooni iyo amni darro. waxay intaa ku dareen in la xiray xuduudaha hawada iyo dhulka ee Niger. wararka ka imaanaya caasimadda Niamey ee dalkaasi ayaa sheegaya in dad badan ay gacmo furan ku soo dhaweeyeen afgambiga, inkastoo madaxweynihii xilka laga tuuray ee Mohamed Bazoum si dimuqraadi ah loo doortay. Washington ayaa ka digtay inay jirto khatar ka imaan karta caloosha u shaqaystayaasha Ruushka ee Wagner oo ka faa'iideysan doona afgambiga Niger. wararkii caalamka ee BBC-da galabnimada waa naga intaas. xasan aad buu u mahadsan yahay Axmed Yuusuf Cadceed oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, aynu ku bilownay fal dad badan ay ka argagaxeen ayaa xalay saqdii dhexe ka dhacay deegaan lagu magacaabo Qorof oo hoostaga dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana xadla leh gobolka Galgaduud, waxaana deegaankaasi uu si gaar ah u hoostaga gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida, halkaasi oo lagu dilay 5 caruur ah, kuwa kalena lagu dhaawacay, qaarna lagu afduubay oo ilaa iyo hadda la la'yahay nolol iyo geeri. xilliga uu falku dhacayay ayaa wararku sheegayaan in caruurtu ay jiifeen dugsi quraan ay dhiganayeen. dadka deegaanka ayaa dhacdadan ku eedeeyay maleeshiyaad ka soo jeeda deegaano ka tirsan Galmudug, waxaana caruurtan maanta lagu aasay deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud. haddaba nabadoon Maxamed Daahir Muuse oo ka mid ah waalidiinta caruurta la laayay ayaa qadka teleefoonka ee Dhabad igu waramay. xalay shaqadii dhexe ayaa waxaa ka dhacay shil aad iyo aad u foolxun oo xuquuqul insaanka iyo bilaantinimada ka baxsan. waxaa lagu dilay shilkaasi 5 caruur ah oo yar yar ah oo arday joogta dugsi quraan dhiganaysay meel ku taala xuduudda dowlad deegaanka 2 qabal oo la yiraahdo Furuntifoore iyo Qorof dhexdooda meel ah dowlad deegaanka degmada Galaadi ee gobolka Doolo hoos tagta ayay ka dhaceen. halkaasina dadka ku dhintay waa ilaa hadda 5 ilmood oo midka uu weyn yahay 14 jir, 12 jir, 13 jir, ilaa 7 jir iyo 8 jirna ay ku jiraan. qaar ilmaha ka mid ah waa la afduuftay oo ilaa saacadan gacan lagu hayo, qaar badanna waa dhaawac. adigu aaskoodiina hadda halkan waxaa la keenay Dhabad iyo dhaawacooda la soo gaarsiiyay oo gurmad degdeg loola soo gaarsiiyay xadkan iyo deegaankan. falka ayaa geystay marka fal soo noqnoqday weeye, marar badan ayuu dhacay, meel ka xandhaale iyo kacdheer u dhaxayso isla eeriyadaas ayuu ka dhacay oo lagu xasuuqay dad badan oo rayada ay ku jiraan, hooyo ilmo wadata ay ku jiro, nin shayba oo 90 jira, dhalinyaro iyo waayeel intaba isu jira iyo dumar. isla falkaas oo kale 2 toddobaad ka hor ayuu ka dhacay area noo dhow ayana oo meel la yiraahdo Laba Galle. falal soo noqnoqday weeye, waxa geysanaya dadyow ka yimid deegaamada aanu dariska nahay oo dhinaca Galmudug dariska nahay. marar badanna ay way geysteen falalkan iyo falal la mid ah intii hadda sanadkan gudihiisa waa falkii shanaad
doonaan marka nimankaasina dee dadku qabaa'il weeye oo weligood waa dagaali jiray oo dhibtu waa dhici jidhay dadka birmageydada iyo xoolaha iyo ilmaha iyo hooyooyinka iyo odayaasha waxa falalkaan dhici jiray maahan laakiin waa falal sida aanu tuhunsannahay dadka deegaankuna ay leeyihiin ku lug leeyihiin argagixisada oo la leeyahay qabaa'ilka in la isugu dhufto maadaama dagaal guluf colaadeed galmudug uu ka socdo oo ceelbuur iyo ilaa xardheero wixii ka sheeya la rabo in la xoreeyo ilaa xindheero ilaa gobollada ay ku dambeeyaan shabaabku falalkan waa falal macnihii looga soo horjeedo oo qabaa'ilka lagu abaabulahayo oo macnihii dadkaani waa dad khaasa weliba jifooyin hoose dadka deegaanka uma dhamma sidaas awgeed waxaan xogta ku haynaa dadkaasi hameen walba joogtaystay falalkaas waxshinimada inay yihiin dad macnihii soomaalida dee iyo qabaa'ilna magaca kale laakiin ficilka iyo dhaqanka iyo waxa ay samaynahayaana kale shaqankii argagixisada iyo shabaabka arrintan wararka qaar waxa ay sheegayaan in ay xiriir la leedahay aana qabiil marka arrintaa ma jirtaa maya ma jidho sababtuna waxay tahay dadkaani muddo dheer bay dagaalayeen colaad ka dhexaysay laakiin falalkii dhici jiray ma aha falalkaani haatanna wax dhacay oo dadkaani geysteen oo inta muddadan ah hadda ay geysteen oo macnihii aana qabiilahay ma jidho falalkaani waa dadkii bilmageyda ahaa oo ilmihii yaryarka ahaa oo dugsigoodii qur-aanka jiifa oo meel walba loogu imaan jiro oo la dulmari jiray iyagoo jiifa la dulmari jiray waayeelkii iyo hooyooyinkii iyo ilmihii ay dhaleen oo naaska nuugayo hooyo iyo ilmaheedii oo naaska nuugaya ayaa lagu dilay gaari rakaab oo shacab ah iyo nin waayeel oo 90 jir oo dhakhtar u socday ayaa toddobaad ka hor ay ka geysteen marka wax aana qabiil oo falalkaani daba socdaan ma jiro waana wax alla murtana kama jiraan falalkaani waa falal ay argagixisadu ay ku lug leedahay oo cusub oo gobolka ka cusub weeye iyo deegaanka sidee ku xaqiijiseen hadda adinku dadka dilay in ay ka soo jeedaan deegaanka aad horey u magacaawday sidee lagu xaqiijiyey walaalow dadku waa Soomaali ajaanib ma aha waa la yaqaanaa halku raadku waa la qaadaayo reemiga waa taqaanaayo markii maaragtay xol yimaado waxa la qaadaa raadkiisa markuu soo galay iyo markuu baxay labadaba deegaamada aanu dariska nahay noogu dhow hadda meel la yiraahdo Tuulo Sarmaan ayaa bays u ah ay ka soo kaceen iyo Balcad meel la yiraahdo oo ay madaxa kale ka joogaan waxaa tiri caruurta hadda waxaa la keenay deegaanka Dhabad waxaana dhibaatadu ay ka dhacday xuduudda gobolkaasi Galgaduud oo la wadaago dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya marka caruurtu ma halka ayay ku noolaayeen mise deegaankan hadda meydkooda la keenay ayay ku noolaayeen markii hore xadka labada dhinacba dadka degan waa isku hal faamil caruurtaani gurmad caafimaad oo degdeg ah ayaa macnihii waxay ahayd meeshii ugu dhaweyd hadda halkan macnihii deegaamada xagga caafimaadka meeshii ugu dhaweyd bay ahayd marka caruurtu dee ayagoo qaar garaab yahay oo qaar meyd yahay ayaa dadkii argagax ahaan ula soo carareen laakiin deegaanka ay degan yihiin oo dugsiga ku haysteen oo dad deegaan ahaan ka tirsan yihiin waa dawlad deegaanka marka qoysas reemiya miyay ahaayeen caruurtan qoysaska ay ka soo jeedeen mise tuulooyinka ayay deganaayeen qoysas reemiya weeye cid guuraa weeye dugsi quraan cid guuraa ay leeyihiin cida badan oo dugsi leeyaha meesha degan oo quraanka ku dhigta miyiga geed qurac ah ayaa dugsigu uga oodnaa meeshaasay quraankoodan maalintii ku dhigtaan habeenkiina ku dabshitaan oo seexdaan labada habeennimo xilliga dambe oo ilmihiina hurdaan yar yar oo mid walba dugsigii geed iska gees hurdo ayaa loo yimid qof ayaa loo kiciyey sidaas ayaa loo shabaaxay ilmihii waa la dhigtiray wixii markii hore booday wixii boodi kale aan boodina waa la wada qabtay qaar waa lala tego ilaa hadda waa lala maqan yahay qayb ka mid tirada marka lala maqan yahay waa intee ilaa 3 ilmood baan hadda gacanta lagu hayn oo ay la tageen raadkoodina la arkay nimankii dhinaca xadka markay u ambabaxayeen macnaheedu cadaada xaggooda markay u ambabaxeen ilaa 3 ilmood bay la tageen oo aan hadda wali lahayn intaana waraysiga ka qaban nabadoon waxaad ii sheegtay in caruurta la laayay ay ku jiraan caruur adigu aad dhashay marka bal arrinta noo faahfaahi adu 5 ilmood baa dhintay midaan dhalay baa ku jira midaan adeer u ahay baa ku jira dhammaanna waa faamilkayga dhammaantood 5 kaasi wuxuu ahaa nabadoon Maxamed Daahir Muuse oo ka mid ah waalidiinta caruurtaasi la laayay qadka telefoonka ee Dhabad ayuu iigu waramayay haddaba dadka Soomaalidu dhaqamada ay leeyihiin waxaa ka mid ah in dadka birmigeydada ah aan lagu xadgudbin haddii ay dhacdana waxaa jira xeerar la mariyo iyo tallaabooyin laga qaado cidda xadgudubkaasi samaysa ugaas Mukhtaar Bashiir Xuseen waa mid ka mid ah oday dhaqameedyada Soomaalida waana ugaas ka mid ah ugaaska mid ka mid ah beelaha Soomaalida ee dalkani Kenya waxa uu iga waramay bal dhaqanka Soomaalida waxa uu ka qabo dilka caruur yaryar oo aan qaan gaarin iyo waxa laga yeelo hadiiba ay dhacdooyinkaasi horay u dhaceen iyo hadda hadii ay dhaceenba waxa laga yeelo oo dhaqanka Soomaalidu uu markaasi qabo
soomaalida caado uma aha in caruur yar la dilo ama la afduubo ama la dhibaateeyo caruur dhaqan uma aha xadgudubka soomaalida wax u yaalo oo dhaqan ahaan u yaala ma aha sharciga islaamkana waa lagu sheegay dhaqanna uma aha dhibka markuu jiro dadka kale dhibka ku dhacayo caruurta kamid ma aha hatta haweenka way ku jiraan marka lama ogolo dhaqan ahaan marka la yiraahdo in caruur lagu xadgudbo ama la laayo ama la afduubo waa waxaan dhaqanka soomaalida ku jira islaamnimadana kuma jirto ugaas marka tusaale ka bixi xilliyadii hore sababtoo ah dagaalada dhex mara qaabab kala duwan ba ku dhex marana Soomaalida wax hadda bilowday ma ahan xilliyadii hore marka laba dhinac ay dagaalamayaan sidee loola dhaqmi jiray caruurta iyo dadka kale sida waayeelka iyo haweenka bal arinta noo faahfaahi dhaqanka muxuu ahaa jira waqtiga dhibka uu jiro ama laba qoloba dagaal u dhaxeeyo caruurta ama haweenka hadba ninkay gacantooda galaan inay badbaadiyaan waaye haddii maaragtay meel khatar arinta ay ka dhacdo oo badbaado la'aan imaatana adiga inaad maaragtay u taliso ama meel aad geyso ama dhaqaalayso waaye laakiin waa mamnuuc dhaqanna kuma jiro caruurta iyo haweenka dadka makastada oo laciifta in lagu xadgudbo dhaqan Soomaali ma aha marka dadka ayaga waa in gacanta lagu qabtaa haddii maaragtay ama dadkooda qax uu ku dhaco ama gacanta ay u soo galaan labada qolo dagaal isku mid ah waa inay maaragtay meel wanaagsan geeyaan oo dhaqaaleeyaan oo gacanta ku hayaan caruurta marka dadka dhibaatada u geysanaya dhaqan ahaan maxaa laga yeeli jiray maxaa tallaabo ah oo laga qaadi jiray dadka caruurta iyo guud ahaan dadka birmigeedada la isku yiraahdo dhibaateeya dadka caruurta dadka dhibaatada u geysto ama haddaan rabbi laga waayo nabadgelyada aan ka talinin ama hadday gacantooda galaan sidii looga rabay aan oola dhaqmin dadkaas dhaqanka Soomaalida aad buu ugu xun yahay waqtiga dagaalaha ay dhamaadaan ama waxaan ma aragtay haddaan rabbi laga meesha ka baxaana dadka ayaga waraysi weyn iyo maaragtay rabbi laga tilaabo ka qaadid Soomaalida xaggeeda aad iyo aad bay ugu xun tahay marka in tilaabo laga qaado oo arrintaas dhaqanka dadka ka baxsan tilaabo laga qaado oo laga hadlo saasay ahaan jirtay Soomaalida dhaqankeeda tilaabada marka laga qaadi jiray ee ay dadkaasi mudan yihiin maxay tahay tilaabada ay mudan yihiin maxaa waaye maadaama caruur ay ku xadgudbeen yaryar oo dhaqan sidaas ay ahayn waa tilaabo loo fariisanayo oo haddaan rabbi laga waynin caruurtaas lagu xadgudbay wixii maaragtay dadka lagu ciqaabi lahay in laga tashado waana waxyaalo iska fara badan dhaqan ahaan heer ahaan baa loo noqonaa wax baa lis waraysanaa maxay ku dhaxdaa leeyahay marka haddaan rabbi waa laga talinaa waxaana looga talinaa sidaan mar dambana aan loogu noqonin haddii kale ahaynna labada dhinac hadday ku heshiiyaan maadaama wixii dagaalba ay ahayd oo dagaal uu iska dhib badan yahay oo waxyaalo weyn isku sii raacdaba ay jirin marka shayga ugu fiican oo looga maaragtay looga gudbi karo waa inuu heshiis dhaco mar dambana caruurta aan lagu xadgudbin dadka lagu xadgudbana eed weyn la saaro oo haddaan rabbi laga waynin wixii jirana loo sheego aanan loogu noqonin oo xeerkii siduu u jirna dadkii la fahansiiyo sidaasay noqonaysaa dabcan aqoon badan ayaad u leedahay dhaqanka markii laga hadlo iyo Soomaalida iyo xeerarka u yaala hadda markaad eegto caruur yaryar oo aan qaan gaarin in la laayo oo la beegsado maxaa ka dhalan kara ayaad is leedahay hadda caruur yar oo la laayo oo la beegsado horta dhaqan ahaan marka la yiraahdo aad iyo aad bay u xun tahay maxaa weeye maxay noqonaysaa dadka caruurta laayay oo ku xadgudbay haddii aan la xalinin oo si wanaagan loo xal oo laga hadlin kuwii kale ayagana caruurta laga laayay inay tilaabada qaadaan ayagana oo dhibka inta uu ka sii batay dhici karta kaasi wuxuu ahaa ugaas Mukhtaar Bashiir Xuseen oo ka mid ah oday dhaqameedka Soomaalida ahna ugaas ka mid ah ugaasyada beelaha Soomaalida ee dalkani Kenya oo qadka telefoonka ee Nairobi igu waramayay ayuu kaasi ahaa qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ayaa qodobkaasi dhanka Facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay Falastiin Khaliif Biifeeye oo joogta Muqdisho waxay leedahay aad baan uga xumahay caruurta sida arxan darrada ah loogu laayay deegaanka hoostaga gobolka Doolo waa ayaan darro weyn iyo musiibo in la dilo birmageydada waxaan ugu baaqayaa in dadka dhibkaasi geystay cadaaladda la hor keeno بدري عبد الله إبراهيم أبورو ما كسو قري فرينتان إسنا وحا أوليه رونتي وأرين أغب كؤاه دقن كسومالي دا كان بحسن دين تينسو بنديل كاسي لوغ جيستي عرور تايرير الغول لايي deegaan ka tirsan gobolka Doolo hase ahaatee waxaa muhiim ah in raggii dilkaasi geystay gacanta lagu soo dhigo dhammaan caruurtaasi la dilayna Allah u naxariisto eheladii ay ka baxeen samar iyo iimaan Allah ka siiyo ayuu leeyahay
dhegeystayaal badan ayaa aragtidooda qodobkaasi kasoo dhiibtay. waxaa ka mid ah saadiq cabdi gurey oo muqdisho isna fariintan kasoo qoray. waxa uu leeyahay caruurtaasi shanta ah ee la xasuuqay lagu xasuuqay deegaanka qorof markaasi sentarka ka xandhaale maanta lagu aasay degmada dhabad ee gobolka galgaduud. dhacdadaasi waa mid aad u foolxun oo ugub ku ah soomaalida, waayo soomaalidu dhaqan iyo curfi uma lahayn in la dilo dadka birmigeydada ah ee ay ku jiraan haweenka iyo dhallaankaba. waxaan ku baaqayaa oo ugu baaqayaa maamulka galmudug in arintaa wax laga qabto oo dadkaasi cadaalad la hor keeno. welina halka aad nagala socotaan waa b b c. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa hagaag dhegeystayaal, wararka Soomaalida waynu ku soo laaban doonaa. hase ahaatee markan aynu waa tahay raalli ahaada markaan aan kusii socdo wararka Soomaaliya. wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in markaasi dowladda Soomaaliya, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliyana oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda, in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda iyadoo kaashanaysa markaasi ay duqeyn ku burburisay meel markaasi al-shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo oo ah geerij, waana meel u dhow halka wax ka dhaceen magaalada Buulabardo ee gobolka Hiiraan. si aynu u helno faahfaahin waxaa si toosa qadka muqdisho ugu jira wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan. ibraahim, galab wanaagsan. bal maxaan faahfaahin ka haynaa hadalkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya? xasan, duqayntu waxay dhacday aroornimadii hore ee saaka abaare 7 aroornimo. dad ku sugan tuulada la yiraahdo Mukayle oo qiyaastii 42 kilomitir galbeed uga beegan magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan waxay sheegeen ilaa 5 gantaal in uu ku dhacay ama ay ku dhaceen garaash ku yaala magaaladaasi ama tuuladaasi la yiraahdo Mukayle. dadkaasi waxay soo wariyeen inaanay ogeyn dhibka ka dhacay garaashka gudihiisa, laakiin garaashku ahaa mid ay gawaarida ku farsamaysan jireen oo ay ku samaysan jireen al-shabaab oo Mukayle xukumaysay dhowr iyo 10 sano. 42 kilomitir ayay Buulaburte u jirtaa dhinaca galbeedka ay ka xigtaa. tan iyo 2008 ilaa 2009 al-shabaab ayaa deegaankaasi Mukayle xukumaysay, waana galbeedka Buulaburte marka webiga dhinacaas loo aado. waa dhul muddo dheer al-shabaab xukumayeen. marka dadka deegaanku waxay soo wariyeen in duqeyn ay jirtay xagga cirka ah oo ilaa 5 gantaala garaash ku yaala Mukaylena ay duqeyntaasi ka dhacday, laakiin waxay sheegeen in garaashka sida caadiga ahba gawaarida lagu farsamayn jiray oo al-shabaab gawaarida ku samaysan jireen. laakiin dowladdu waxay sheegtay in weerar uu ka dhacay Mukayle xarun al-shabaab ay ku samayn jireen walxaha qarxa oo siday hadalka u dhigeen. warbaahinta dowladdu waxay sheegeen in lagu burburiyey ilaa 4 gaari oo walxaha qarxa ay ku rarnaayeen. sidoo kale waxay sheegeen in tiro ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaasi lagu dilay, inkastoo aanay tiro rasmiya sheegin. ilaa hadda waxaan ognahay waxa weeye xasan oo in Mukayle oo qiyaastii 42 kilomitir jirta Buulaburte in duqeyni saaka ka dhacday 7 aroornimo. garaash ay al-shabaab gawaarida ku samaysan jireenna duqeyntaasi lala beegsaday. dowladduna ay leedahay dhowr baabuur oo qarax ayaa lagu burburiyey, inkastoo cid madax bannaan oo xaqiijisa arrintaasi aynay jirin. sidoo kale baraha internetka ee al-shabaab wax warar laguma qorin oo ku saabsan duqeynta saaka ka dhacday Mukayle. ibraahim, waxaynu la soconnaa in dhaqdhaqaaqyo kale ay socdaan oo ah wejigii labaad sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay, gaar ahaanna galmudug. bal marka halkay wax marayaan gaar ahaan galmudug? weli waxaa socda diyaargarowga dagaal dowladdu ay ku doonayso in ay dhulka al-shabaab ay ka maamulaan galmudug ay uga hareen in looga saaro. waxaa lasoo warinaya qulqulka ciidamo fara badan oo ka gudbaya xuduudda ay wadaagaan gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud. waxaa u dambeysay ciidan xoog leh oo xalay ilaa saaka gaaray degmada la yiraahdo ceeldheer ee bariga gobolka galgaduud, kuwaasoo la filaya inay qeyb ka noqdaan duulaanka ka dhanka ah magaalooyinka kale ee
ku yaala bariga gobolka galgaduud sida galhareeri iyo ceelbuur iyo ceel garas iyo tuulooyinka ay ka mid ka yihiin wabxa iyo ceel qooxle iyo dhulkaas oo ay muddo dheer al-shabaab xukumayeen. sidaasoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan xoogle ayaa ka socda magaala madaxda galmudug ee dhuusamareeb halkaasoo weli joogo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka iyo militariga soomaaliya iyagoo isu diyaarinaya gulufka la doonayo in galmudug oo dhan deegaanada ay uga hareen al-shabaab laga soo saaro. galgaduud tusaale ahaan deegaanada ay ku hareen waa deegaano ka mida bariga gobolka oo ay muddo dheer joogeen al-shabaab. mudugna waxay ka joogaan qaybo ka mida koonfur inkastaysan degmo joogin oo xardheere hore looga saaray haddana tuulooyin kale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug ayay weli ku harsan yihiin. marka dabcan howlgalka wejiga koowaad gabagabadiisa ayay dowladdu ku sheegtay in galmudug looga soo saari doono al-shabaab dabadeedna wejiga labaad uu ka bilaaban doono gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe wixii galbeed ka xiga webiga kadibna loo gudbi doono gobolada kale ee koonfurta sida south west ama koonfur galbeed iyo jubbaland. madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta garan oo maanta ka hadlayay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamanka ama golaha wakiilada ee koonfur galbeed oo baydhabo lagu qabtay wuxuu sheegay in dadka reer koonfur galbeed looga baahan yahay inay isu diyaariyaan ka qaybgalka duulaankaas. wuxuu sheegay in dowladda iyo saaxiibadeeda caalamiga ahba ay diyaar u yihiin duulaanka gobolada koonfur galbeed looga saarayo al-shabaab laakiin dadka deegaanka looga baahan yahay in ay dagaalka u diyaargaroobaan. waxa uu sheegay in dagaalka gobolada dhexe looga saaray al-shabaab intoodii badnayd ay dadka deegaanku qayb libaax leh ku lahaayeen. marka waxa uu dadka deegaanka ugu baaqay inay isu diyaariyaan dagaalkaas oo uu sheegay in ay tahay waqtigii ay iska kor qaadi lahaayeen al-shabaab dhowr iyo 10 sano kadib. aad buu u mahadsan yahay wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo si toosa qadka ugu jiray. markaana baaritaan qarsoodi ah oo ay samaysay b b c laanta af carabiga ayaa waxa uu daaha ka qaaday eedeymo ku saabsan tacadiyo galmo oo xoog ah oo baahsan oo ay kula kaceen markaasi ama ay sameeyeen dhaqaatiirta ruuxiga ah oo dalka suudaan oo loola jeedo dadka markaasi ka howlgala ama dadka ku daweeya goobaha cilaajka. suudaan waa mid ka mid ah wadamo badan oo gobolka ku yaala halkaasoo si weyn markaasi ay dadkaasi dhaqaatiirta ruuxiga ah ay dadka kula tacaalaan laakiin dhaqankan ma ahan ayaa la leeyahay mid nidaamsan sidaa darteedna waa mid xadgudub badan uu ka dhashay dalka suudaan. 50 haween ah ayaa ku eedeeyey dadkaasi daaweeya ama goobahaasi ka howlgala kufsi faraxumayn iyo in dumarka ay markaasi u geysteen dhibaatooyin baahsan. hanaan rasaaki ayaa warbixintan ka soo dirtay suudaan. faadumo macalin abuukar ayaa soo jeedinaysa. adduun qarsoon oo xadgudubyo jinsi iyo dhiigmirasho ay ku kacaan rag sida ay sheegteen ku shaqeeya daaweynta ruuxiga ama cilaajyada ayaa ay dhowaan daaha ka qaaday b b c da qaybteeda carabiga. baanashada ruuxiga ah oo sidoo kale loo yaqaano isku daaweynta qur-aanka waa dhaqan caan ka ah carabta iyo dunida muslimka. inta badan dumarka ayaa ah kuwa soo booqda dadka daaweyntaasi ku shaqaysta iyagoo aaminsan inay ka xallin karaan mashaakilaadka haysta ee badanaa ku aroora shaydaanka kuwaasoo iyaguna ka saaraya jinka qofka ku jira sida ay ku andacoodaan. dhibanayaal gaaraya 85 haween ah oo ay b b c du soo ururisay muddo ka badan sanad ayaa lagu dabagalay daaweeyayaal 65 qof ah oo ku kala nool dalalka Morocco iyo Suudaan. waa labada wadan oo habdaaweynta noocan ah aadka looga jecel yahay waxaana ragga shaqadaasi qabtaa badanaa lagu eedeeyaa kufsi handadaad iyo xadgudubyo kale. waxa ay b b c du bilihii ugu dambeeyey ka shaqaynaysay la hadalka NGO-yo maxkamado qareenno iyo haween intii lagu guda jiray ururinta iyo xaqiijinta sheekooyinka xadgudubyada ee ka dhaca goobaha Soomaalidu u taqaano cilaajyada. wariye qarsoon oo lagu daaweeyey mid ka mid ah goobahaasi si aanu indhaheena ugu aragno waxa ka dhacaya meelahaasi ayaa lafteeda si aanan habboonayn loo taabtay kahor inta aysan ka baxsan goobtaasi. dadkan waxaa ka mid ah gabar lagu magacaabo Dalal, ma aha magaceeda saxda ah. waxa ay xilli ay niyad jabsanayd daaweyn ka raadsatay daaweeyaha ruuxiga ah ee ku nool magaalo u dhow Casablanca dhowr sano ka hor markaasoo ay jirtay da'da 20-meeyada. waxa ay sheegtay in daaweeyaha uu u sheegay in niyad jabka uu ka dhashay jin jecel oo ay u afduuban tahay. kulamadii ay yeesheen mid ka mid ah ayaa waxa uu ka codsaday in ay uriso udgoon uu sheegay inuu yahay miski balse ay haatan aaminsan tahay inuu ahaa nooc ka mid ah daroogooyinka.
sababtoo ah waa ay miyir doorsoontay. dalal oo aan horey u soo marin wax guur ah ayaa sheegtay inay soo toostay xilli dambe iyadoo dharkeedii hoose laga bixiyey ayna xaqiiqsatay in la kufsaday. waxa ay sheegtay markii ay bilowday inay ku qayliso ninkii sidaasi ku sameeyey waa daaweeyihii markaas iyada daweynaya ee iyadoo weydiinaysa waxa uu ku sameeyey. hase yeeshee waxa uu ugu jawaabay in jinku uu sidaasi jirkeeda uga baxayo. waxa ay sheegtay inaysan cidna u sheegin wixii maalintaa dhacay maadaama ay aad uga xishoon jirtay islamarkaana ay hubtay in lagu eedayn doono iyada. waxaase xaalku isku bedelay markii ay ogaatay dhowr toddobaad kadib in ay uur leedahay. waa ayna argagaxday, xitaa waxa ay ku fakartay inay markaasi isdisho. markii ay arrintan la wadaagtay ninkii sidan ku sameeyey waxa uu ugu jawaabay malaha jinku uu uureeyey. dalal waxa ay sheegtay inay aad uga naxday waaye aragnimada ay la kulantay taasoo keentay in markii ubadkeeda uu dhashay ay diiday inay eegto oo ay qabato ama xitaa magac ay u bixiso oo ay markaasi korsato. qaar badan oo ka mid ah haweenka aan la hadalna ayaa sheegay inay ka baqayaan in iyaga laftooda lagu eedeeyo haddii ay soo sheegaan xadgudubyada loo geysto. sidaa darteedna tiro aad u yar ayaa qoysaskooda u sheegay iska badaa booliiska dalka Suudaan haweeney lagu magacaabo Sawsan ayaa inoo sheegtay in markii ninkeedu uu guursaday sida ay shareecada islaamku u banaysay ay la kulantay xaalad adag taasoo gaarsiisan heer ay dhakhtar u tagto si ay caawimo u raadsato. waxay rajaynaysaa inay hesho daawo ninkeeda ka dhigi karta mid si wanaagsan ula dhaqmaa una jajabnaada, laakiin ma aysan filaynin daaweynta uu soo jeediyey nin ay u tagtay. waxa uu u soo jeediyey in ay la seexato si buu yiri xaaladaha markaas iyada haysta ay meesha uga baxaan. hase yeeshee Sawsan ayaa sheegtay in markiiba ay halkaasi ka kacday oo aanay dib ugu noqonin. 3 ka mid ah 50 haween ah oo aan Suudaan kala hadalnay kuwaasoo ka hadlaya xadgudubyada ay la kulmeen waxa ay isku mid u sheegeen oo soo noqnoqday qof ay ku magacaabeen Sheekh Ibraahim oo hogaamiye diimeed ah oo ka mid ah dadka howlahaasi ku shaqaysta. BBC-da ayaa Sheekh Ibraahim wax ka weydiisay waxa lagu eedeeyay, hase yeeshee waa uu beeniyey inuu faraxumeeyey amaba uu wax u geysta wax haween ah ee keliya isku dayo inuu caawiyo, wuxuuna si lama filaan ah u soo afjaray waraysiga aanu la yeelan rabnay. faadimo macalin abuukar way mahadsan tahay. warbixintaasi oo faahfaahsan bbcsomali.com ayaad kala socon kartaan dhegeystayaal. haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan idin maqashiin jirnay warkii oo rogaal celisa cadceed mar kale aan ka codsado. gudoomiyaha guddiga isbeddelka cimilada ee ururka magaciisa loo soo gaabiyo IPCC ayaa ku tilmaamay sugnaanshaha maanta ay ah in bishii hore ay ahayd tii ugu kululayd ee abid la diiwaangeliyo mid aan caadi ahayn. Professor Jim Skia ayaa BBC-da u sheegay in xawaaraha iyo sida xad-dhaafka ah ee heerkulku uu u kacay ay ku noqotay lama filaan. hogaamiyaasha 8 waddan oo ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika ee wadaaga kaymaha Amazon ayaa isugu imaanaya magaalada Pelem ee dalka Brazil si ay uga wada hadlaan sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo kaynta. madaxweynaha Brazil Lula da Silva ayaa ballan qaaday in uu soo afjari doono xaalufinta dhirta halka lagu gaaro sanadka 2030. waxa uu raadinayaa hab goboleed oo isku xiran si wax looga qabto macdanta sharci darrada ah iyo jarista dhirta, sidoo kale dembiyada kale ee deegaanka laga galo. boqortooyada Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday waxa ay ugu yeertay talaabadii abid ugu weyneyd ee ay ka qaado dalalka saddexaad ee gacanta militariga Ruushka. liiskan waxaa ku jira 2 shirkadood oo Turkiga laga leeyahay oo la sheegay inay ku lug lahaayeen dhoofinta qalabka elektarooniga ee isticmaalaan militariga Ruushka, iyo sidoo kale shirkad fadhigeedu yahay Dubai oo dawladda Ingiriisku ay sheegtay inay Moscow ka caawisay diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo qalabka kale ee la hago. muwaadiniin ka soo jeeda dalalka Switzerland iyo Slovakia ayaa lagu eedeeyay doorkooda fududaynta heshiisyada hubka. dawladda Georgia ayaa oo dadka dhalila ay ku eedeeyaan inay taageersan tahay Ruushka ayaa Moscow ku cambaaraysay sanad guuradii 15aad ee ka soo wareegtay duulaankii Ruushku uu ku qaaday Georgia. ra'iisul wasaaraha Georgia Irakli Garabashvili oo ayaa sheegay in caalamka oo dhan ay og yihiin in Ruushku uu yahay mid gardaran iyo in sii socoshada qabsashada Ruushka ee qaybo ka mid ah dhulka Georgia ay caqabad weyn ku tahay horumarka dalkaasi. wasiirka maaliyadda ee Israel Bezalel Smotrich ayaa xiray dhaqaalihii ay siin jireen magaalooyinka Carabta iyo waxbarashada Falastiiniyiinta talabadaas oo dhalisay eedeymo cunsurinimo.
Bezalel Smotrich oo ah madaxa xisbiga taageersan dadka deegaanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah lacagta loo qoondeeyay golayaasha deegaanka carabta ee Israa'iil ay ku dambeyn karto gacanta waxa uu ugu yeeray dambiilayaal iyo argagixiso. hogaamiyaasha golaha militariga ee hay'adda dalka Niger ayaa sheegay inaysan aqbali karin booqasho diblomaasiyadeed oo heerkeedu sareeyo sababo la xiriira khatar ku wajahan ammaanka dadka soo booqanaya. cadceed mar kale wuu mahadsan yahay wararkii caalamka ayuu nala socodsiinayay barnaamijka waxaa noo soo socda qodobo kale waxaana ka mid ah barnaamijkani waa barnaamij carbin ama laylin hogaamineed oo uu madax ka yahay madaxweynihii hore Obama xarun uu leeyahay oo loo yiraahdo Obama Foundation oo loogu talagalay dadka saameynta ku leh bulshada dhinac kasta haataba ama xagga siyaasadda horumarka dhaqaalaha in la siiyo layli hogaamineed oo ah mid aad u tayo sare waa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah dhalinyarada dalka Mareykanka ee Soomaali Mareykanka ah oo sanadkan markaasi loo doortay ka mid noqoshada barnaamij oo hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama. Gordhow ayaad maqli doontaan. hase ahaatee markan haddii aynu eegno wararka kale dadka ku nool labada magaalo ee ugu waaweyn gobolka Amxarada ee dalka Ethiopia oo ah caasimadda Bahirdaar iyo magaalada taariikhiga ee Gondar ayaa BBC-da u sheegay in dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyada deegaanka ah iyo ciidamada dawladda oo halkaa ka sii socdo iyadoo la sheegayo in dagaalku u muuqdo mid aan qaboobayn. wararka arrinta la xiriira waxaa soo jeedinaya Saciid Xasan Anteno. iska hor imaadyadan ayaa waxaa ka mid ah in la isku adeegsaday hubka culculus sida dadka deegaanka ay sheegeen iyadoo tani ay halis ku tahay ammaanka dadka rayidka ah. idaacadda ku hadasha afka dawladda ee magaalada Bahirdaar ayaa joojisay tabinta sida ay sheegeen dadka deegaanku. dagaalka ayaa sidoo kale ka socda magaalada warshadaha ee Debre Birhan oo 130 kiiloomitir ama 80 mayl dhanka waqooyi ka xigta caasimadda dalka ee magaalada Addis Ababa, halkaas oo ay dadka deegaanku sheegeen in ay arkayeen diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ah oo hawada ku duulaya. dadka u oleeya jabhadda Fano ayaa waxay sheegayaan inay gacanta ku hayaan magaalooyin yar oo dheeri ah, laakiin BBC-da uma suuro gelin inay si madax bannaan u xaqiijiso sheegashadaas. madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Tedros Adhanom oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha socda. Dr. Tedros ayaa ku qoray akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada in taakulada arrimaha bini'aadanimada ay adag tahay sababo la xiriira wadooyinka oo xiran, isgaarsiinta oo adag iyo xanibaad lagu soo rogay internetka. dhanka kale weli waxaa socda xariga laga soo sheegayo magaalada Addis Ababa iyadoo wariye uu ka mid yahay dadka la xiray. Bekal Alamiro asaasihii Alpha Media ayaa sidoo kale sanadkii hore lagu xiray gobolka Tigreega. Anteno wuu mahadsan yahay. markana xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa ka digay qatar uu sheegay in ay uga imaan karto wadanka Niger haddii halka ay fursad ka helaan xogaga calooshood u shaqaystayaasha ee Wagner. ururkan ayaa ka howlgala dalalka dariska la ah Niger waxaana hogaamiyihiisa Yevgeny Prigozhin oo soo dhaweeyay afgambigii ay sameeyeen militariga dalkaas. waraysi oo BBC-da siiyay ayaa Blinken waxa uu ku dooday in meel kasta oo ay cagta dhigaan Wagner ay u horseedaan dhimasho iyo burbur. Every single place that this group, Wagner Group, has gone, meel kasta oo ay tagaan kooxda Wagner waxay sababaan dhimasho, burbur iyo dadku ay ka faa'iidaystaan. waxaa sare u kacay xaaladaha amni darro ee wadamada ay tageen. waxaan rumaysnahay in Ruushka iyo Wagner ayna kaalin ku lahayn waxa ka dhacay Niger, balse ay doonayaan in fursad ay ka dhaxelaan. waxaan aragnaa in si la mid ah dalalkii hore ay ku lug yeesheen aanay wax wanaaga u horseedi doonin dalkaasi. dhanka kale taliska Niger ayaa xiray hawada dalkaasi iyagoo ka cabsi qaba in lagu soo duulo. haddaba waxa uu yahay duulaanka ay ka baqayaan ayaa waxaan ka waraysanay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Axmed Yuusuf Cadceed ayuuna u warramay. duulaanka ay ka baqayaan waxa weeye in ururka ku bahoobay ECOWAS ee galbeedka Afrika ay abaabulayaan in ay ku soo qaadaan weerar maadaama xilligii loo qabtay in xukunka lagu wareejiyo xabsigana laga sii daayay madaxweynihii Maxamed Bazoum ee la inqilaabay ay dhaaftay oo xaddii ahayd. waxa hadda ay filayaan waxa weeye in dagaal uu kaga yimaado dhankaas, weliba dagaalkaasoo garab ka helayo dowladaha galbeedka khaasatan Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska oo diyaar u yihiin in ay ka caawiyaan duulaankaas dowladahaasi galbeedka Afrika ee ay Nigeria horboodayso. tallaabadan military ee horaana ay ku baaqeen in ururka galbeedka Afrika ay qaadi doonaan haddii aan si degdeg ah loogu soo celinin madaxweyne Maxamed Bazoum ee xukunka, maxay horseedi kartaa tallaabadani?
waxay horseedi kartaa in regionka dhan ama gobolka dowladaha ku xeeran oo dhanba ay dhibaatada gaarto in xoog laysku dayo in lagu weeraro militariga Niger ee talada la wareegay taa waxaa ka dhalan kartaa in ay sida ay ku baaqeen dowladaha kale ee Mali iyo Burkina Faso oo ay ciidamo gacanta ku hayaan taladeeda waxay ku baaqeen haddii lagu soo duulo dalka in ayagana dagaalka dhinacooda ka soo geli doonaan ayaga oo la safan Niger marka waa arrin aad iyo aad runtii walaaceeda iskale waana arrin mataqaanaa runtii ay ka dambeeyaan quwadaha waaweyn ee isku hayo hardanka geopolitiga ama siyaasadda juqrafiyeysan waa haddii aan galbeed oo dhinaca iyo Ruushka oo xagga bariga kolley isagu cadcad dhowaan waxaa socday mudaharaadyo ay dhigayaan shacabku ay ku taageerayaan afgembigii halkaasi ka dhacay maxay tahay dowladdan ama xukuumaddan ay shacabku diidan yihiin balse wadamada shisheeyuhu ay doonayaan dabcan Faransiiska khaasatan oo ahaa gumeystii hore ee dalka hore u gumeystay gebi ahaanba bariga Afrika meelihii uu ka gumeysan jiray oo dhan waa laga soo nacay waxaana ugu wacnayd in uu weligiiba ku hayay nidaam gumeysi ah khayraadkoodana uu iska daldalanayay siyaabo kalena uma taqaanay weli madaxa kaga fadhiyay waa tii Mali uu ka baxay 7,000 oo ciidan oo halka ka joogay uu kala baxay ciidamada qaramada midoobay Mali ku jirayna ay balansan yihiin sanadkan in ay ka baxaan gebi ahaanba oo laguna muransan yahay inay waqti qaadan doonto ka bixitaankooda haddaba dadkii galbeedka way soo naceen khaasatan Faransiiska way soo naceen sidaas ayay u taageerayaan kacaanka militariga ka dhashay waana mid aad moodo in uu janjeero dhanka Ruushka waan gartay Mali iyo Burkina Faso kasakow inay sheegaan inay erga u diri doonaan dalka Niger ma waxay ku hanjabeen amaba ay sheegeen in ay tallaabo military qaadayaan haddii la soo weeraro ciidamada afgembiga sameeyay ها sidaas ay sheegeen waxay yiraahdeen waxaan weerar lagu soo qaaday Niger waxay ka dhigan tahay weerar anagana lagu soo qaaday marka waynu ka falcelinaynaa bay yiraahdeen marka way caddahay mantiqada marka ciidanka waa la dumin karaa oo way sahlan tahay laakiin xasilinta dalka ayaa dhib badan arrimahaasi dalal badan baa lagu soo bartay Iraq oo kale Afghanistan oo kale maxay ahayd awoodo xulafa intay isbahaystaan ay dalku dumiyaan way sahlan tahay laakiin dib u unkashadiisa iyo soo xasilintiisa dambe ayaa waqti qaadanaysa marka kulley arrinkan maadaama waxa ka dambeeya ay quwado waaweyn ay yihiin waxay u eg tahay in ay ku tartamayaan dagaalkii qaboobaana uu yahay meesha waxa ka socdo dowladahan waaweyn iyagu waxba kama gelin khasaaraha iyo burburka ku imaanayo fagaarahaas lagu dagaalamayo iyagu midba midka kale ayuu rabaa in uu kaga awood bato ama saameyn bato marka dhib kuma ay aha inay dabada ka riixaan inay ku baratamaan in mataqaanaa ay ku kala adkaadaan laakiin dhibku wuxuu soo gaarayaa dalka dagaalka iyo mantiqada dagaalka uu ka dhacayo oo ah Afrikada galbeed hadda waxaad ka dhawaajisay Ruushka baraha bulshadana waxaa qabsaday suurtagalnimada in ciidamada calooshadu shaqaystayaasha ee Ruushka ee Wagner loo yaqaan ay ku sugan yihiin gudaha dalka Niger inkastoo aan warkaa la xaqiijin karin suurtagal ma tahay inay halkaas ku sugan yihiin lama xaqiijin karo laakiin waa wax suuragal way tahay laakiin xaqiijin bay u baahan tahay hase yeeshee wayba ka hadleenba Wagner maalintii dhaweeyay soo dhaweeyeen inqilaabkii ka dhacay Niger halka waxaa ka cad in Ruushka saameyntiisii ay ku ballaaranayso dowladaha galbeedka laakiin waxaaba suuragal ah in macnaha Ruushka si rasmi ah uu mataqaanay naftiisu soo dagaalka Ukraine uu ku mashquulsan yahay in uu si hadii dagaalka uu weynaado uu si toos ah u soo galo maxay tahay danaha gaarka ah ee dalalka reer galbeedku ay kala yihiin wadamadan galbeedka Afrika siiba hadda dalka Niger Niger wuxuu xulafo dhow la ahaa reer galbeedka waxaana halkan uu kala qayb qaadanayay dowladaha galbeedka la dagaalanka kooxaha argagixisada ama islaamiyiinta haddaba waxaa jirta in ay saldhigyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku yaaliin dalkaas oo ay kala leeyihiin saldhigyadaasi Mareykanka Ingiriiska Germany Talyaaniga iyo midowga Yurub dowladahaasi danahooda ayagoo fiirinayo in ay iska kaashanayaan la dagaalanka argagixisada waxaa kaloo iyadana loo adeegsan karaa in fiditaanka iyo saameynta Ruushka iyo Shiinaha ay tahay mid halka difaaca laga sii horgelay maxamed xasan dable oo cadceed u waramay ayuu kaasi ahaa intii uusan xilka bannayn madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu abuuray mashaariic horumarineed oo u badan barnaamijyo hogaamineed sida Obama Foundation waxaana sanadkan loo doortay 100 qof oo ka kala yimid gobolada Mareykanka kuwaasi oo la soo xushay loona soo xushay hogaaminta barnaamijkaas waxaa ka mid noqday Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah 2 qof oo laga soo xushay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Siyaad Siciid Saalax ayuu uga warramay waxa barnaamijkan uu yahay
barnaamijkani waa barnaamij carbin ama laylin hogaamineed oo uu madax ka yahay madaxweynihii hore Obama xarun uu leeyahay oo loo yiraahdo Obama Foundation oo loogu talagalay dadka saameynta ku leh bulshada dhinac kasta haataba ama xagga siyaasadda horumarka dhaqaalaha in la siiyo layli hogaamineed oo ah mid aad u tayo sare ah oo madaxweyne Obama uu arrintaas ka saaray. waa gartay layligu muxuu noqonayaa ma mid tababar aad qaadanaysaanba oo heer sare ah qaabkee ayaa loo wajahayaa layligan? runtii waa tababaro istaba jooga oo runtii aad u heer sareeya oo laga shaqeeyay waana barnaamijkan wuxuu qayb ka ahaa barnaamij hogaamineed oo xarunta Obama ay sameysay intii ugu horreysay waxay ahayd mid la yiraahdo hogaamiyaasha Afrika mid loogu talagalay hogaamiyaasha Yurub mid loogu talagalay hogaamiyaasha Asia markii afraad marka waxa sanadkan uu bilaabay xarunta hogaaminta ee Obama waxay bilowday in ay sameyso barnaamij u gaara Mareykanka marka barnaamijkani waa barnaamij la yiraahdo barnaamijka layliga horumarinta hogaaminta ee loogu talagalay Mareykanka marka 100 qof ayaa laga xushay Mareykan oo dhan gobol kasta waxa laga soo qaaday 2 qof marka runtii sharaf weyn bay tahay inaan ka mid noqdo 2 qof ee laga soo qaatay Minnesota. waa gartay adiga Cabdiraxmaan Muuse ahaan maxaad is oran kartaa waa lagugu xushay oo aad 100 qof aad uga mid noqotay? aniga lafteedu waxay igu noqotay filim waa runtii tartanku aad buu badnaa kumanaan qof baa arrintan maxay ahaydey quudareynayay oo doonayay marka inaan qof ka soo dhex baxo oo noqdo 100 qof laga xushay kumanaan kun runtii sharaf weyn bay tahay waxaan is leeyahay in maxaa la yiraahdaa dadaalkan ugu jiro in hagaajinta tayada bulshadeena iyo maxay arrimaha shaqaaleyn qayb ka ahayd iyo taariikhdii hogaamineed hore hadii noqdo xagga sidii hadii noqdo xagga midkaansalka iyo kaalinta bulshada ku dhexleeyay qayb ka ahayd runtii sharaf weyn way tahay. waa gartay Cabdiraxmaan ahaan maxaad ka filaysaa in barnaamijkan hogaaminta ah uu ku kordhiyo adiga naftaada? runtii inaad ka mid noqoto dad gaara oo xarunta Obama iyo madaxweyne Obama si gaara u carbinayo waxay leedahay qiimo weyn. Obama waxa lagu yaqaanay inuu lahaa tayo hogaamineed oo sareysa runtii waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka barto barnaamijkan waxaa kaloo rajeynayaa dadka ay gula jira tababarka ama hogaaminta in seminaarkan in aanu wax kala kororsano dad runtii aad u qiimo badan ku jira marka aad baan runtii u soo dhaweynayaa waxaanan jecelahay wixii aan ka soo bartay inaan bulshada ku soo celiyo. waa gartay in muddo ah magaaladan ama gobolkan waxaad ka dhex muuqatay arrimaha u doodida xuquuqda shaqaalaha ma is oran karnaa arrintaas ayaa kuu xambaartay barnaamijkan weyn? waa laga yaabaa laakiin waxay eegayaan dhammaan taariikhdaadii oo dhan taariikhdaadii shaqo taariikhdaada bulsho waxbarashadaada aqoontaada iyo maxay ahayd akhlaaqdaada marka waxyaalo badan bay qiimeynayaan runtii waa laga yaabaa taasina qayb ka ciyaartay isugeyn anigu waxaan diyaar u ahay inaan halgankii aan ugu jiray shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay danyarta inaan halkii ka sii wado haddii aan timtaqaana xataa aan heli lahayn hogaamintana awalba waan u taagnay inaan shaqaalaha u doodo iyo dadka saboolka danyarta taana waan sii dardargelin doonaa laakiin runtii waan ku faraxsanahay barnaamijka Cabdiraxmaan ugu dambeyntii waxaa magaaladan hore uga jiray barnaamij weyn oo loo yaqaano Bush Foundation oo ilaa lacag 100,000 oo waxbarasho iyo horumarin lagu bixin jiray tan Obama miyay leedahay dhaqaale kaasoo kale ah? ما تاني كنا دقالة ملها لكن واحد هذا هاي تببر سياسات يهجمينات أو تصرية لكن واحد قلنا دقالة متشرطة رونتي مركب حاجة كان كانت تن أوباما كميسان ورسم كان نقطة حاجة تببر كيتهيدا تببر كوفك هجمي هاي وهليو مركب تاسنا نجي مهمة رونتي لعقت والسمين كرا لكن تببر كي حرفة أيام مرة مهمة. cabdiraxmaan muuse oo u waramayay uriya siyaad siciid saalax ayuu kaasi ahaa markaana qof aad jeceshahay ma ka tegi lahayd maxay tahay duruufta sababi karta qof muddo aad jecleed in aad ka harto welina aad jeceshahay mise waa jidka keliya ee u bannaan qofku markuu uu go'aan caynkaasi oo kala qaato heese badan oo xaaladda ka hadlaya ayaa jira balse tii ugu dambeysay oo uu sameeyey abwaanka magaciisa la yidhaahdo cawaale ismaaciil saleebaan deeqsi ayaanu qodobkan ku eegi doonaa waxa uu abwaanku u waramay wariyaha b b c da ee hargeysa sidiiq maxamed burmed kuma goyn kutabaye kuma nacen damba tiriisday qalbigaygu kuma tirin kactagaye kuma goyn kutabaye kuma nacen damba
heesta aad maqlayseen abwaankii sameeyey baa ila jooga abwaan cawaale aad baan kuu salaamayaa abwaan bal inta aanan heestaasi erayadeeda iyo ujeeddadeeda aanan ku weydiinin bal waxaad ka warantaa horta ma jirtaa heer ama xad uu qofka wax jecele isagoo qofkii jecel balse uu dib uga laaban karo markii xadka gaadho oo kale horta heerarka jacaylka malaha heerka ugu gubsan weeyaan marka qofkii adigu waad jeceshay isagiina ama cid kale u jeceli ama saad u jeceshay kuma jecla dabadeetana laxa jecladii waxay ku odhanaysaa qofku sidanu jecel yahay u yeel iyadoo adiga haddana ku daran siduu jecel yahay baad la jeclaanaysaa taadii baad ka tanaasulaysaa aduu dee malaha siyaasadda waxaa la odhan jiray urur baa urur ku biiraya soo maha heerkan oo kale waa markaad ururkaaga intaad baabiiso aad urur kale weliba kale ujeedda aad tihiin aad ku biirayso waa tahay maxaa ka mid ah isleedahay kale in qofku uu gaadho go'aan inuu isaga tago qofkii uu jeclaa haddana sii jecel yahay horta sadiiqo waxyaabo badan baa sababa laakiin marka naftu waxay ku odhanaysaa armo marka aad fasaxdo ee tiisa u raacdo ay rija halkaa ka dhalan kartaa oo culayskii iyo qasabkii iyo jujuubkii aad ka dulqaaday aad isleedahay mala aad u ciidamadaada haddaad dib u qaado qofkii wuuba kugu soo jilci karaa oo ma wada ahaan dee sii wadadayna macarajo ayaa dhinac kaga jirta hayo qofkii wuxuu isleeyahay marka aad malaha spacekaa siiso bilo qofkiiba kuu soo noqdaayo imika adaa dhibayo oo kale marka go'aan caadiya maaha wuxuu isleeyahay malaha dee jacaylkaagana dhib ku noqdaye bal yarana sii hor laakiin isagu ma dal doorsanayo wuu sii taagnaanaya halka erayada laftigoogaban heesta ka dhex dareemay iyaga oo heesta ay ku bilaabmayso sidii qof iska tegayoo kale inay haddana dhexda ay ka sheegayso erayo in ay weli qorshihiisu yahay aad rabitaanka iyo helista marka waa qalbi iska hor imanaya aad waxa kaloo sadiiqo jira qofkii isagoo huba qofkan inuu 100 qalad ka galay sida wadkiisa u huba ayuu haddana waxaan uu ku haysto tuhun iyo waxaan u hubin ka soo qaadaya haddana isaga ama isa saarayaba 100% ha wixiina hadda 100% woogi marka waa astaamaha dadka wax jecelo inay beri yeelaan qof dhibta u geystay ayaa ka mid ah bal erayada iyada oo muusiga dhegeystayaasha in way maqleen dibna waynu ugu baahan doonaa bal erayada siday dhadhamayaan iyo fariintii xambaarsan yihiin inoo maray erayadu waxay ku bilaabayaan kaa tegaya kuma goyn ku tabaya kuma nicin danbaa tidhi istaayay qalbigaygu kuma tirin waa tanoo xusuusaha igu badan ku tabiyaa weli waxaad ku taallaa hankii taashka kuu xidhay rajatiigsigaygana tiriigaagu kama damin taalladaadu ruuxday ka dhex taagan tahay weli ha ahaata tabasho waxaan kaa tirsanayaa tuhun ha u badnaadee inaan eeda kugu taxo xisku wuu ka tudhaya naftu waxay tilmaansiga itustaa wanaagiyo wakhtigii horee tegey tolmoonidaadii 10 jeer qof laabtiyo lagu tolay wadnaha bidix durba lama takooree hadduu tacaddi waayuhu kala tiro lafiyo jiidh isku tiirsanaan jiray sida cadow istalax taga istoydaa ka fiicane beri baad ka tahay weli xaggaygoo turxaanli'i kutix keliya cabli waxaa jirtay hees caara oo uu sameeyey cabdulqaadir xarsi yamyam oo uu gabadhii ku ammaanayo uu jeclaa iyo siduu u fasaxayo dabeedna wuu sii ducayay in la sii dardaarmaya xitaa ka guursan doona aad iyo aad aamina kan doorto aad iyo marka waxay muujinaysaa xataa leexa jeclada waa wax dhici kara inuu ninkaasi ninka dambe guursado hadduu gabadhaa xumeeyo ay gacan ka hadal baa arrintoodu gaadhi karto kuma goyn ku tabaye kuma nacin danba tiriisday qalbigaygu kuma tirin ka tagaye kuma goyn ku tabaye kuma nacin danba tiriisday qalbigaygu kuma tirin xusuusa igu badan ku tabiya wali waxaad ku taalaa hankitaashka ku xidhay rajatiiga sigayana tirigaagu kama damin abwaan deeqsi oo u warramaya sidiiq maxamed burmud ayuu kaasi ahaa barnaamijka tabinta tooska sabtidan waxaynu ku soo gudbinaynaa kulanka u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Nottingham Forest waa mid ka mid ah kulamada bilowga ama toddobaadka koowaad xiliyaareedka cusub ee Premier League Arsenal
kaalinta labaad ayay ku dhammaysatay xilli ciyaareedkii hore sanadkanna waxay doonaysaa in ay mar kale tartanto halka Nottingham Forest ay sanad kale doonayso inay baaqi ku sii ahaato heerka koowaad ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League. nagu soo biir tabinta tooska oo bilaaban doonta 2 duhurnimo xilliga bariga Afrika. tabinta tooska BBC. aan sii raacino wararka ciyaaraha oo ay noo hayso Kowsar Maxamed Cabdullaahi. xubintan ciyaarahana waxaan ku eegi doonaa xiriirka ciyaaraha fudud ee dunida ee loo soo gaabiyo IAAF oo aqbalay xilka qaadistii dhawaan lagu sameeyay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo toddobaadkan bilaabmayo iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda iyadoo lagu wado in suuqu soo xirmo 3 toddobaad kadib. aynu ku bilaabnay xiriirka ciyaaraha fudud ee dunida ee loo soo gaabiyo IAAF ayaa aqbalay xilka qaadistii dhawaan lagu sameeyay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Marwo Khadiija Aadan Daahir. xiriirka ayaa bartooda gaar ahaan qaybta ay ku kaydiyaan magacyada gudoomiyayaasha wadamada kala duwan ka saaray magaca Khadiijo waxayna ku bedeleen gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Faarax Cali Macalin kaasoo xilka sii hayn doona. shaqa ka joojinta gudoomiye Khadiijo ayaa waxay daba socotay fadeexad hadalhayn dhalisay dhawaan oo Soomaaliya ka soo gaartay tartan orod oo ka dhacay Shiinaha kaasoo ay ka qayb gashay gabar la yiraahdo Nasra oo la sheegay inaysan lahayn wax taariikh oo dhanka orodka ah isla markaana aysan ahayn ciyaaryahanad orodka ka tirsan. wararka la xiriira xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliyana haddii aan halka uga baxno toddobaadkan waxaa bilaabmaya horyaalka Ingiriiska ee Premier League ee xilli ciyaareedka 2023 iyo 2024. kulanka ugu horeeya waxa uu qabsoomi doonaa Jimcaha nagu soo aadan waxaana lagu daahfuri doonaa kooxda Burnley oo soo dhaweynaysa Manchester City ciyaartaasi oo soo gali doonta saacadda Afrikada bari marka ay tahay 10 fiidnimo oo gow ah. waa tahay dhageystayaal xubintii ciyaaraha ayaan weli ku guda jirnaa bal markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda. waxaa lagu soo waramayaa in kooxda Tottenham ay diiday dalabkii ugu dambeeyay ee ugu yimid kooxda Bayern Munich taasoo ay ku doondoonayaan ciyaaryahanka weerarka ugu dheela kooxdaasi ee Harry Kane. Bayern ayaa waxa ay marka hore ku rajo weyneed in ay Tottenham ogolaan doonto heshiiska balse waxaa la rumaysan yahay in labada dhinac ay kala meel ka taagan yihiin qiimaha lagu iibinayo ciyaaryahankaasi 30 sano jirka ah. xidigaha horyaalka Bundesliga ee Bayern Munich ayaa waxa ay soo jeediyeen in haddii ay ku guuldareystaan inay la soo wareegaan Harry Kane ay markaasi eegi doonaan dalabyada kale ee u furan. iyadoo ay sidaa tahay 3 isbuuc oo kaliya ayaa ka harsan in uu soo xirmo suuqa kala iibsiga. Harry Kane ayaa dhaliyay 280 gool 435 gool oo uu ka soo muuqday shaxda Tottenham dhammaan horyaalada kala duwan. kooxda West Ham ayaa waxa ay dalab wadajir ah u gudbisay kooxda Manchester United oo ka badan 50 milyan oo pound taasoo ay ku doonayaan ciyaaryahanada kala ah Harry Maguire iyo Scott McTominay. kooxda The Hammers ayaana weli wax saxiix ah sameyn xilli ciyaareedkan inkastoo ay dhawaan ay Arsenal ka iibiyeen Declan Rice. waxaa sidoo kale ay wada hadallo hordhac ah kula jiraan kooxda Ajax si ay uga soo wareegaan ciyaaryahanka 25 sano jirka ah ee khadka dhexe ugu dheela kooxda Mexico ee Edson Alvarez. dhanka kale weeraryahanka Talyaaniga Guinlusha oo 24 sano jir ah ayaa ka tagay kooxdaas wuxuuna ku biiray kooxda Atalanta manacada heshiiska uu u saxiixay kooxdaasi. waxaa la rumaysan yahay in kooxda Manchester United ay diyaar u tahay heshiis balse marka la eego labada ciyaaryahan ee kala ah Maguire oo daafaca ugu dheela Ingiriiska oo 30 sano jir ah iyo McTominay oo 26 sano jir ah oo qadka dhexe ugu dheela Scotland ay qayb ka yihiin shaxda tababare Erik ten Hag. kooxduna waxay ku qasban tahay inay sameyso bedel haddii ay iibiso mid ka mid ah ciyaaryahanadaasi. dhageystayaal intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan xubintii ciyaaraha. aad bay u mahadsan tahay Kowsar Maxamed Cabdullaahi oo soo jeedinaysay barnaamijkaasi ciyaaraha ama wararkaasi ciyaaraha
guud ahaanna idaacaddii ciyaarahaasi ayaa ugu dambeeyey dhegeystayaal wixii warar ah oo kale waxaad kala socon kartaan bbcsomali.com iyo baraha bulshada ee BBC Somali News dabcan halkaasi wararka aad ka akhrisan kartaan waxaa ka mid ah dhacdadii argagaxleed ee ka dhacday xadka gobolka Galgaduud oo la wadaago dowlad deegaanka gaar ahaan deegaana ka tirsan dowlad deegaanka oo caruur lagu laayay iyo qodobo kale oo xiiso leh inta ka horeysa berri subax haddii Allah uu yiraahdo 7 subaxnimo waxaan idinkaga tagaynaa dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo